qof nool oo fashilma ma jiro run ahaantii waxaa jira qof aanan aqoonin halku uu asaga ku fiican yahay. wax jeclow dadkana aamin, qalbiga fur oo cafiska badi, arrimaha qaarna indhahaaga ka xiro. dadkii shalay ku colaaday ayaa laga yaabaa beri inay kuu sacabatumaan ay garabkaaga istaagaan, balse mid ogow, hal god in 2 mar lagaa qaniino waa kuu doqonnimo. dadka qaarkood qalbigooda waa sida caleenta jiilaalka ah oo khalalan, si kasta oo aad u waraabiso weligeed cagaar kuma noqon doonto gacmahaaga. walaal fadlan hana daalinin nafsadaada ee u daa dabaysha ha lulatee. qofkiin iimaan buuxa lagama helo ilaa uu walaalkiisa uu la jeclaado waxa khayrka ah ee nafsadiisu ay jeceshahay. weligaa haddii aad rabto inaad guulaysato waxa khayrka ah la jeclow walaalkaaga adiga kuugu dhow. jacaylku waa diin. noloshu waxay ku siin kartaa dad badan oo qurux badan, laakiinse adiga hal qof ayaa ku siin karo nolol qurux badan. walaalkaygiyow ama walaashaydii khaalida ah, mar walba ku dheh yaa allah markii aan lumiyo rajadayda iyo qorshaha aan nolosha ka leeyahay. i xasuusi in jacaylkaaga uu ka weyn yahay murugada i haysata. sidoo kaleenta qorshaha aad ka leedahay noloshayda ayaa ka wanaagsan riyada aniga aan u taamayo ama aan u ordayo. run ahaantii muhiim ma ahan sida ay dadka kuu arkayaan, waxaa muhiim ah sida adiga aad nafsadaada u arkayso. taasi ayaad guul ku gaari kartaa. haddii aad isku daydo qof walboo bani aadam ah inaad qanciso, ma qancin karto. waa sida soomaalidu ay tiraahdo, indhaha cara keliya ayaa buuxiso. wanaag walboo aad samayso ninbaa xumaan u qaadan doona. adigana ka tali horumarkaaga iyo farxadaada keliya. walaale ha dhibin weligaa qof bani aadam ah. adigu waad dhimanaysaa, dadkuna waa ay dhimanayaan. waxaadna wada tegi doontaan maxkamadda Allah subxaanahu wa tacaalaa. wax aan ku qusayninna haddii aad ka fikirto naftaada keliya ayaad cadibaysaa. walaala sidaa u ogow, qofka uu xiriirkaydan ka dhaxaya haddii aad ka dareento in uusan ku soo jeedin aamusnaanta, ma ugu dadaali kartaa adiga? qiimaha naftaada rahan ha ugu dhigin qof aanan kuu jeedin, oo aanan ku qadarinaynin, oo aanan tixgelinaynin wanaaggaaga iyo jacaylkaaga. run ahaantii qofka si kasta uu kuu jecel yahay, hadduu xanaaqsan yahay lagama yaabo inuu dhaawac yar kuu geysto. xanaaqa ka tan weyn qalbigiisa ku jiro waxaa ka sii ballaaran maxabbada adiga uu kuu hayo. haddii ay dhabka tahayna wuu ku qiimayn doonaa, wuuna xijin doonaa xanaaqiisa. walaale weligaa wejigaaga, quruxdaada iyo muuqaalkaaga iyo caqligaaga ha u bedelin qof dartiisa. maxaa yeelay kuwa annagana jecel mar walba waan u qurux badannahay, kuwa annaga aanna necebna mar walba waan ula xunnahay. sidaa u ogow, qofkii kuwaa bariista asagoo amni qaba, caafimaad haysta, iyo sidoo kale wuxuu maalinkaasi quudan lahaa haysta, wuxuu la mid yahay asagoo soo koobay adduunyo iyo wixii ku dhex jira oo dhan. waxaa sidaa yidhi nebiyullaahi muxamed sallallahu calayhi wasallam. sidoo kaleento weligaaga farxad kuma raaxaysan doontid ilaa aad la wadaagto walaalkaaga ama aad la qaybsato farxadaada. sidoo kaleento haddii lagu yiraahdo kala dooro qalbigaaga iyo sharaftaada, waxba ha u fakirin sharaftaada dooro. dadka sharaftooda ka tanaasuli kara ma mudna jacayl. qof ku jecelna labadaasi kala dooro kuma dhahayo sharaftaada iyo karaamadaada. guul ma gaari kartid
adigoo aanan jeclaanin waxa adiga aad qabanaysid nololna uma arki doontid. run ahaantii shimbiruhu waxay cunaan quraanshada marka ay nool yihiin, balse quraanshada ayaa cunta shimbiruhu marka ay dhintaan. taasna waxay ku baraysaa, waxayna bari kartaa anaga sida dunida ay isku bedesho mar walba. haddii aad jeceshahay laba qof, dooro midka dambe, sababtoo ahi midka hore haddii aad si dhab u jeclaan lahayd lagama yaabeen inaad mid kala jeclaato. sidoo kale raggu dhulku kuma heshiiyaan, waayo dhoowada ayaa laga abuuray. sidoo kale dumarkana ragga kuma heshiiyaan, ee waxaa laga abuuray feedha ragga ah.